asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Geeridu waa mid xaq ah, waxaana dhedhamin doona qof walba oo bani aadam ah. Qof walba oo inaga mid ah qabuuraha ayuu degi doonaa, waxaana cuni doona aboorka. Cuthmaan ibnu Cafaan radiyallaahu tacaala canhu wa ardaah ayaa haddii uu qabri kor istaago ama uu kor yimaado, intuu ooyo wuxuu odhan jiray: alqabru awalu manaasili alaakhirah. qabrigu waa guriga ugu horreeya guryaha aakhiro. fa in naja alcabdu minhu famaa bacdahu aysaru minh. haddii uu addoonku qabriga ku badbaado, wixii ka dambeeya waa ay ka fudud yihiin. alle subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisu sallallahu calayhi wasallam waa kuwo aad ugu naxariis badan ummadda muslimiinta. waxay inoo sheegeen acmaal qofkii sameeya ka badbaadin doonta cadaabka qabriga iyo mugdigiisa. famaa arxamaka yaa rabba alcaalamiin. camalka ugu horreeya al-ikhthaaru min dikri haadimi lladaat, in la badiyo macaangooyaha xusidiisa. wuxuu nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ula dardaarmay in ay badiyaan macaangooyaha ama geerida xusideeda. wuxuuna yidhi calayhi salaatu wasalaam: akhiruu min dikri haadimi lladaat, yacni almowt. badiya macaangooyaha ama geerida xusideeda, gaar ahaana wakhtiyada salaada, si ay qofka muslimka ah uga badbaadiso cadaabulqabriga. aan ku wada sallinno xabiibkeena muxamed calayhi salaatu wassalaam. geerida xusideedu waxay addoonka ka canaananaysaa oo ka hor istaagaysaa inuu dunuub iyo macaasi galo, waxayna ku dhiiro gelinaysaa inuu u soo degdego towbada iyo inuu sameeyo camal wanaagsan. waxayna qofka muslimka ah ka dhigaysaa mid cabsanaya, maxaa yeelay alle subxaanahu wa tacaala addoonka isuguma daro laba cabsi iyo laba amni. qofkii uu adduunyada ku ammaansiiyo wuxuu ku cabsi geliyaa aakhirada. qofkii adduunyada ooga cabsadana aakhiro ayuu ku ammaangelin doonaa subxaanahu wa tacaala. camalka labaad al-iimaanu waalcamalu alsaalixu wa taacatu llaahi caza wajalla taacatan camyaa. in alle subxaanahu wa tacaala si dhab ah loo rumeeyo oo camal wanaagsan lala yimaado, iyo in si dhab ah alle loo ateeco subxaanahu wa tacaala. waxay ka mid yihiin wasaa'isha ugu waaweyn ee addoonka ka badbaadinaysa cadaabka qabriga. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala addoonka muslimka ah ku imtixaamaa adduunyada. haddii uu camal wanaagsan la yimaadana wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ku sugaa iimaanka, wuxuuna ka badbaadiyaa shahawaadka, wuxuuna u wanaajiyaa khaatumadiisa, wuxuuna towxiidka ku sugaa marka uu dhimanayo. alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala kuwa isaga rumeeyey ku sugaa qowlka sugan ee xaqa ah, kaasoo ah shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah, iyo wixii uu nebigu sallallahu calayhi wasalama ula yimid ee ah diinta xaqa ah. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ugu sugaa inta ay adduunyada ku nool yihiin iyo marka ay khaatumo wanaagsan ku dhimanayaanba. markii qabriga la geliyo oo labada malag ay su'aalo weydiinayaanna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ku hanuuniyaa jawaabta saxda ah. wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala adduun iyo aakhiraba toosnaanta ka lumiyaa kuwa daalimiinta ah. wuxuu doono ayuuna alle subxaanahu wa tacaala sameeyaa oo ay ka mid tahay waafajinta ahlul iimaanka iyo dullaynta ahlul kufriga iyo kuwa xadgudba. camalka saddexaad
المداومة على قراءة سورة الملك والعمل بمقتضاها إن لجوكتيو أخرنت سورة الملك أما سورة تبارك إيو إن لغو دقمو ومد أدونك كبد بادينيس عذابك قبريغا alle subxaanahu wa tacaala ayaa soo dejiyey oo inagu amray akhrinteeda si aan u badbaadno suuraddaanuna waxay leedahay qiso la yaab leh facan ibnu cabbaasin radiallahu canhumaa qaal waxaa ibnu cabbaas radiallahu canhu laga wariyey in uu yidhi ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحتسب أنه قبر mid ka mid ahaa saxaabadii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa wuxuu teendhadiisa ka taagtay qabri dushiisa isagoo aanan ogayn in ay qabri tahay fa idaa fiihi insaanun yaqra'u suuratu tabaaraka aladii biyadihi almulku xataa khatimahaa markaas buu wuxuu ku dhex arkay qof insaan ah oo akhrinaya suuratu tabaaraka aladii biyadihi almulk ilaa uu ka dhammeeyey fa ata annabiya sala allahu calayhi wasalama faqaal markaas buu intuu nebiga sala allahu calayhi wasalama u yimid wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah innii darabtu khibaa'ii calaa qabrin wa ana laa axtasibu annahu qabr rasuulkii ilaahayow waxaan aqalkayga ama teendhadayda ka dul taagtay meel qabri ah anigoo aanan ogayn in ay qabri tahay fa idaa fiihi insaanun yaqra'u suuratu tabaaraka aladii biyadihi almulku xataa khatimahaa markaas baan ugu tagay qof bani aadam ah oo suuratu tabaaraka aladii biyadihi almulku ku dhex akhrinaya ilaa uu ka dhammeeyey faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaas buu wuxuu rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama ku yidhi hiya almaanica hiya almunjiya tunjiihi min cadaabi alqabr suuraddaas waa mid ka mancinaysa oo badbaadinaysa waxay ka badbaadinaysaa cadaabka qabriga ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam camalka afaraad waa attaqwa ama alle ka cabsiga wuxuu ka mid yahay asbaabaha ugu muhiimsan ee addoonka badbaadinaysa adduun iyo aakhiraba qabriga waxaa inagu sugaya fitno aad u weyn acaadana allahu wa iyaakum minha waxaana ka badbaadaya oo keliya qofka alle subxaanahu wa tacaala ka cabsada alle ka cabsigu ama taqwadu waxay kuu damaanad qaadaysaa in alle subxaanahu wa tacaala uu kuu xifaadinayo dhammaan arrimahaaga sidaas darteed ayuu alle subxaanahu wa tacaala inagu amray in aan siyaadsanno acmaasha taqwada alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala watasawaduu fa inna khayra azaadi attaqwa wattaquuni yaa ulil albaab daarta aakhiro ugu sahay qaata acmaal wan wanaagsan sahay loo qaatana waxaa ugu khayr badan alle ka cabsiga aniga iga cabsada haddii aad tihiin kuwa caqliga saliimka u saaxiibka ah ayuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala camalka shanaad waa al-istiqaama ku sugnaanshada ama laasimidda waa in qalbiga lagu sugaa tawxiidka iyo in alle subxaanahu wa tacaala loo khushuuco oo la weyneeyo oo laga heebaysto iyo in la jeclaado oo loo cararo iyo in isaga la rajeeyo oo la baryo iyo in isaga la tala saarto oo laga jeesto wixii isaga ka soo haray iyo in dhammaan xubnaha lagu laasimo taacadiisa subxaanahu wa tacaala wuxuu alle subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa kariimka ah dhexdiisa ku yidhi inna aladiina qaaluu rabbuna allahu humma istaqaamuu tatanazzalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون kuwa yidhi rabbigeena waa allah subxaanahu wa tacaala keligiisa oo aanan lahayn wax shariig ah
kadibna ku toosnaada shareecadiisa, malaa'ig ayaa ku soo degta marka ay dhimanayaan iyagoo ku odhanaya, ha ka baqina geerida iyo wixii ka dambeeya, hana ka baqina wixii aad gadaashiina ooga soo tagteen oo arrimaha adduunyada ka mid ah, kuna bishaaraysta jannadii aad doonayseen oo aad u shaqaysanayseen. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh, fadlan ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.